dadweyne quraanku war ma aha qof keenay qabiil ma samaysan qoraama abuurin wargeys qoran maaha qareen kuma doodin abwaan ma qorshaynin fanaano ma qaadin wadaad qalinduuri dadka uma qormaynin nin qaad ku mirqaamay qowluu yidhi maaha digtoor shan qof baadhay dawadu qoray maaha qabbaanna ma sheegin qowsaar kuma baanin qiraaliya maaha gargeed lagu qaaday qusuusan ma keenin wasiir qodobeeyey ustaad iyo qaari midnaan ma qorshaynin qaanuun laga reebay quruun hore maaha qoraal nebi maaha qataar sixir maaha qowliidhi ma sheegin duq soo qabaxleeyey heshiis kuma qaadan dad qaarad ku noolna wax qayb u ah maaha intaaba markaynu nidhi maaha waxaa layga fadhiyaa inaan sheego wixii uu ahaa qur-aanku dadweyne daliil qoran weeye dastuur quman weeye qowlkii rabbi weeye qaynuun alle weeye ilaah quwaddiisa qiraal sugay weeye quduusalmacbuudku qasdigu u abuuray waxaa qofku uuman qarqoorrada uunka kitaab qoray weeye khilaafna ma yeesho xaqiiqse qur-aanka qofkii u rumeeya kalkiisa quluubta hubaal ugu qaata si fiican u qayba qiimaa u sugnaaday quwiila ogsoonye ninkiisa khilaafo qur-aanka raxmaanku khasaare ma waayo markaadse khusuusan kitaabkan qur-aanku intuu qara leegiyay qumaati u dhuuxdo qur-aanku waa tawxiid axkaam iyo qisas markaa tawxiidkaynu ku horrayn axkaamta iyo qisaska intaasaan ku soo koobi doonaa badh baa ka qisooda tawxiid qoto dheer leh sifooyinka qaadir asmaada quwiile qaraarsanidooda qaybaha dunideenna habkuu u qorsheeyey waxaa qalab saaran quruxda ugu yeelay siduu qalinkiisu khilaaf uga dheeriyey sidaan qalalaase qof gaari sameeyey intaa uga qaadin sidaan qolo diiday korkiisa u qoomin midhkaa ka khasaarin allaha qani sheegtay wuxuu quwad leeyay dadyow qaran weyne qur-aanka ilaahay markaad ku eegto badh baa ka qisooda axkaamta qur-aanka quwiila ku dheehay axkaamta u qaybsan in qaadiru doortay cibaado u qaasa in loo qasdi yeelo waa cibaadaadkii hadday tahay qowlka qoftaa in rumeeyey hubaa lagu qaatay ilaah qiridiisa khushuucda salaada sakada qof u baahan qumaati u siinta qadoodiga soonka qiimaha xajku leeyay markaad qarash haysa ka qaybgelidiisa badh baa ka qisooda mucaamil quseeye qaynuunka hagaya qurumaha uuman hadday tahay qaabka rug loogu qormeeyo lamaana isqaatay lamaana si qaable markaadi asteeyey ka qaybgalay shaahid qoys loogu sameeyo badh baa qodobeeya hanaanka iyo qaabka hubaal qabadsiiya lamaana qardoofa dhexdooda ka qiiqday in loo kala qaado qoraalka nikaaxa badh baa qodobeeya haddii nabar qooni qof gaadho korkiisa intaan laba qaylin qas loo tafaxaydan wixii u qalmayay in la iskaga qaato axkaamta qoraysa badh baa qodobeeya intaan qudh la gooyey qardoof ka abuurmin hubla iskubu qaadan qabiil ku dhaqaaqin qabiil kala weerar haweenkuna qiiro gubaabiya qaylo dibna u kala qaadin ee aan la quweynin iblays qaradkiisa amaan la khilaafin qaynuunka ilaahay axkaamta qoraysa in la isku qisaaso hadday qarmi weydo axkaamta qiraysa inaan xalqa toobin axkaamta qoraysa mag la yskaga qaato horweyn iyo qaalmayn qaadir baneey badh baa qodobeeya hanaanka iyo qaabka u qaybsha hubaal ugu qaybsho wixii dhaxal qoysa agoomaha qaadir duqii dhalay qaatay badh baa u garqaada daddayn kala qaatay markaanta dhexdooda khilaaf ka abuurmay isqaanabad keenay badh baa u qorshaysan jihaad lagu qaado qufuururaxiimka kufaar qiri weyday qisaskii baan kusoo gabagabaynayaa dadyow qaran weyne qur-aanka ilaahay badh baa ka qisooda qisaskuna waa taariikh hore iyo qayb inaga dambeeya intii alla iga waafajiyun baan ka idhi badh baa ka qisooda wixii ifkan qooman daraad ka qarqoostay intii qolo xoogle quwiila halaagay intii qaran buuxa ku baaba'ay qaylo intay qolo laysay dabayl qof ma reebi intii laga qoomay hanaankii iyo qaabka qof ruuxa la siiyey ee ay quruxdoodu qalfoof bahalowday qiraad laga yeelay intii kibir qoodhin qardheer uga duushay intii kufri qooqay rasuul quman diiday intii qolo fiican quwiila hanuushay
badhbaa u qorshaysan ayaanta qiyaame qisooyinka yaalla si loogu wax qaato wixii naga dambeeyaan midhar ka taaban doonaa hadday tahay qoomka ay qaaf naga hayso ku qoofalay mawla qarnayna ku dayray ilaa qaran weyne galbeed qaraxdeenna qacwaagu iftiimay qudh looga arkaayo ilaa qaran weyne badaa lagu qaybshay qaybaha dunideenna ilaah qarqin doono ilaa qaran weyne ay suurtu ku qaylin qurumaha gaadha ilaa qaran weyne dadkoo wada qaawan qubuuraha iilka qufuururaxiimku ka soo qufi doono ilaa qanigeennu dadkoo dhan u qaybsho in qaadir ka buuxsho cadaab qarqadhaysa cadaab badhqabowyey badhqaaciyo naariyey badhqay la yidhaahdo hay hubaalna u qaybsan kuwii iska qaatay qof maalu dambaabo xaaraantana quutay agoonta qiyaamay ku qooqay adduunka qam eebba ku siiyo ilaa qanigeennu qumaatii u geeyo jannooyin qorshaysan kuwii dhab u qaatay qur-aanka raxmaanka ilaahay qur-aanka raxmaanka kuwa dhab u qaatay haynaga dhigo ilaahay dalkeennu colaad buu ku jiraa nabad hayna siiyo